waxaanu se ka jawaabaynaa hadaladii deelqaafka ahaa ee runtii taliyaha ciidanka Puntland oo bisha 5teedii baran kaga hadlay oo ahaa inuu Somaliland ku tilmaamay al-shabaab iyo Somaliland inay walaalayihiin ama iskaashadaan taa haddii aan ka jawaabo runtii caalamku uu og yahay ummadda reer Somaliland ama dawladda reer Somaliland inay aanay al-shabaab iyo burcadbadeed midna aanay runtii saldhig ku lahayn deegaanna ku lahayn xiriirna aanay la lahayn isku meelna uga soo jeedaan kana caagan yihiin balse taliyaha waxaan odhan lahaa hoos u eg deegaankaaga halkay degan yihiin iyo intay ku jiraan iyo inta goobood ay ku leeyihiin halka aad sheeganayso iyo halka aad leedahay ciidanka aad xukunto hoostooda intay u jiraan iyo halkay degan yihiin iyadoo caalamkooda og yahay bal hoos ha u eega deegaankiisa mala ma ogey runtii waxaan qodobka labaad kaga hadlayaa inuu baran ku sheegay caasimadda labaad ee Puntland maanta ka hadli mayno Somaliland inay baran tahay iyo in kale laakiin waxaan u sheegaynaa taliyaha runtii hadalka iska wada hadaaqa in Boosaaso xadku uu jiro 15 kilomitir qardhana uu jiro 7 kilomitir garowna uu jiro 5 kilomitir runtii waxaan lahaa baro ogow xafid juqraafikali dalka leedahay ciidankiisa waan xukumaa xadkiisa baro xuduudda Afrika haddaan hadal kale oo soo qaatay si uu dhigo isir iyo arrimo hore oo ay ku daaleen runtii dad hore oran lahaa taliyaha hortaajiraba uu ku daalay arrinta xuduudda Afrika kuma dhisna qabiil iyo isir nin ama taliye ama mas'uul iclaaminayo dagaal oo waa arag sheeganaya malaha de waa arag baanu ahayn balaayada malaha waxba badan kama yaqaan annagu dagaal ma iclaamino 30 sano ama 50 sano runtii 30 sano ka badan ay ciidanka Somaliland jiray maalin qolo shaashadaha iyo caalamkana laguma hayo annagoo dagaal iclaaminin haddana iclaamin mayno xiisana nooma hayo dagaal balaayo waxay tarto waa naqaanaa waxaanu leenahay waliba waxaanu uga digaynaa oo ka waaninaynaa runtii colaada iyo balaayada uu hurinayo reer baraneedna waxaanu leenahay reer baraneed shacab iyo ciidanba waa ummad reer Somaliland meelaha kale oo taliyuhu lahaa afka ka lahaa deegaano u dhow baan marayaana runtii waxaan lahaa uu qoomamayn doonaa arrinta iyada uu qoomamayn doonaa wuuna ogaan doonaa tallaabada laga qaado runtii waxaan kaloo dib ugu noqonayaa reer baraneed waxaan leeyahay deegaanka Xingalool iyo niman ku furi dooni iyo ku rarin bay Soomaalidu ku tilmaantaa midarkii hore meesha ka tagay waa garanaysaan oo marka la kala baro way soo noqdeen waa ogtihiin oo ninka xagga taga mushahar ma helo ciidankoodu wadadu jaraa caalamku waa wada og yahay ciidan dhisan maaha oo xuquuq dhisan leh oo runtii ay ku xisaabtamaan oo ninka shaqaalaha ama ciidankii dee xuquuq buu leeyahay mushahar buu leeyahay malaha wala socdaan caalamku waana wada ogyihiin ummaddu inay 6 bilood aanay helin kuwii hadda tagaa soo noqday markaa waxaan ku soo goyn lahaa hadalkayga ninaan ku furi doonin iyo ku rarin